ciidanka dawladda Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM isla markaana fadhigoodu yahay magaalada Kismaayo ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Ciidanka Kenya oo horey ugu sugnaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa hadda dekada weyn ee magaalada Kismaayo iyo goobo kale oo hareeraheeda la sheegay in ay isku gutageen. Arrintan ayaa u eeg qaabkii lagu xiray Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur xilligii ku jiray ololaha doorashada koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo ugu dambeyn ay afduubteen ciidanka dawladda Itoobiya isla markaana ay u gacan galiyeen dawladda Soomaaliya. Waxaana arrintani ciidanka dawladda Itoobiya ay kula wareegeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay u muuqataa mid suurto gelinaysa in wuhuudda ka imaanaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana ka socota dawladda Soomaaliya ay si toos ah uga degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. maamulka Jubbaland ayaa warqad uu soo saaray waxa uu kaga mamnuucay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo in ay ka soo degaan wuhuudda ka imaanaysa magaalada Muqdisho ee ku socota magaca dawladda Soomaaliya waxayna ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya inay faragelin qaawan ku hayso doorashooyinka maamulkaasi Jubbaland. waxaana dhawaan gegida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo laga celiyay wafdi uu horkacayay wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada dawlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar isagoona dib loogu celiyay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. balse talaabadan ay qaadeen ciidanka dawladda Itoobiya ee ku sugan magaalada Kismaayo isla markaana ay kula wareegeen gegida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in dawladda Soomaaliya ay u fududeyso in ay si caadi ah kaga soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo taas oo noqonaysa in la jabiyo amarkii ka soo baxay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe isla markaana wuhuudda ka socota dawladda Soomaaliya si xooga lagu keeno gudaha magaalada Kismaayo. ciidamada dawladda Kenya oo iyaguna qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM isla markaana xiriir dhow la leh madaxweyne Axmed Madoobe ayaa horay gacanta ugu hayay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaana la sheegay in imika ay iskugu tageen hal goob oo ka agdhow dekada magaaladaasi Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la kulmaya cadaadis isdaba joog ah oo dhan waliba leh kaas oo kaga imaanaya dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda. balse waxa uu isagu markii saddexaad u xusul duubaya in loo soo doorto xilka madaxtinimada dawlad goboleedkaasi Jubbaland.